السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أفتح مايناس oo iga barateen barnaamij reaction balse maanta barnaamijka loo ka duwan yahay bal maxaa dhacay aan daawano barnaamijkan arkaysaan wuxuu ka dhacday dhacdadan Somaliland Hargeysa oo askari Somaliland oo dilaya gabar ama darbaxsho u qaaday dabeecadahan Soomaaliyeedna ragan ahaanteena maxaa ka qabnaa fikir noocan ah aniga maanta waxa waay cabashadaas wada ragga Soomaaliyeed maanta eedeynaya gabar in gacan loo qaado ma haboontahay وسقيل اي وصوا waxaan amar la soo bitaa waxaana muuqaal doon misakaada lama waraahana bo qaniishin tawassan qaniis kale sheegay oo ay korto mawlada amal kirka ah gabar gacan loo qaado inay qalad tahay gabar waliba gabar oo dhan horta lama wadilaba gabar waa mamnuuc gacqadkeeda hadana gabar Soomaaliyeed in la sii dilo adigoo askari Soomaaliyeed hadana in sii dishid waa qalad gabadhan askari first of all tahay ina gacan u qaadid qalad gabar haday wax ka tabanaysid askariya ta sharci dawladda isticmaalaysid waxaan sheegayaa sharci dawladda hadaa isticmaalaysid in qof shacab ah wadankaad u qaadida waa qalad ba gacan u qaadid because of without a reason sabab la'aan ina u qaadid laakiin haday dhacdo ina qaadid waxa laga yaabaa ina sharci ahaan u isticmaasho laakiin gabar inta luq la gashay aad arbaxshanaysid waxyaalahaas kala mamnuuc waaye waxaan ka codsanayaa maxaa la sheegeen dadweynaha daawanayo videogan qofkii arka inuu share gareeyo meeshaan waxaan ka codsanaynaa like subscribe wax walba ina ay saartaan si page maxaa la fariintan ay u gaarto ragga Soomaaliyeed wixii ugu fikirana aad u share gareysaan okay barnaamijka maanta waxa waaye sida muuqaalka aragteen oo kale waa gabar Soomaaliyeed oo loo gacan qaaday waxa uu gacan qaaday nin askari kale oo asna Soomaali ah kulay Somaliland iyo Soomaaliland ahaanteeda fikiraan Soomaali iyo yihiin soo marka maxaa keenay in gacan qaad gabar loo sameeyo waa ka xumaad ani totalitas waana ambaareynaya ragga Soomaali anoo ku hadlayo magaca Soomaaliyeed raggana waxaan leeyahay gabar iyo gacan loo qaadin hadii gabar gacan ku qaado inaad ka tagtid gabar Soomaali hadii waa hooyo waa walaasha waa xaaskaaga waa eedada waa hawarirta xagee ka aysan gabar Soomaaliyeed waa naxariise adduunyadan lagu sheegay waxa la adduunya mata adduunya lagu sheegay waxa waa gabar ma la dilay adduunka waa la ilaalsaa waa lagu faanaa waa sharafta dhan oo wadan uu leeyahay wadan dhan qoomiyad dhan sharaf ay leedahay waxa la maxaa la sheegeen kiiway soo marka kaas waxa sameeyay uu qaldan yahay totally soo marka maxaa ka dhacay ina waxa sameeyay fiidiyoasha sameynaysa waxyaalaha sameynaysa qalad waay gabadha Soomaali la dilay waa ka xumaay walaashay haday aragto fariinteeda waan ka xumaay anoo ku hadlay magaca ragga Soomaaliyeed in gacan lagu qaadanina ma ogolin raalina kama nihin mar walbana raali kama ahaan doono wixii hadda ka bacay sameeyana talaabo sharciina ka qaadan jecel waxaana jeclaan lahaa xitaa hadii fariinteeda in gaartan aan ka codsanayo waxay tahay dadkaas ninka soo adeejiyeen haday xitaa inay dhar ka qaadaan bas maaha waa inay talaabo sharci marsiyaan gabadhaas xuquuqdeeda la galay in annagoo raali oo daawanayna in gabadheena la tuso ayadoo dhahayso waa xaqiiga waa qaatay maxaa keenay in asagoo askari maanta inuu gabar Soomaaliyeed gacan u qaado ama xal ay sheeg suxun u bahdilo maxaa keenay inuu laam ku dhaxay gabadhan walaaleeda askarnimo uga faa'iideysanaysa way maxaa u dilaysaa waa ka xunaa fikirkaas waxaan sheegaynaa rag dhan Soomaaliyeed saas ma ahan dabeecadaas ma lahan rag Soomaalida dhaqankaas ma lahan lagu ma aqoon jirin haddana ma lahan laakiin qof shakhsi way dhacdaa waxaan ka codsanaa dadka sii bubuunaa dhahay rag Soomaaliyeed san waa sidoo waa qalad rag Soomaaliyeed arintaas kama wada sino waxay kas arintan ku dhaxal qof oo shakhsi wax sameeyay oo dambi galay qofka bilaadan shakhsi dambi uu gali kara haduu gala ma aha in dadka dhan ay wada sameeyeen laakiin qofkan waxa waay waa qof jaahilnimo u geysay jaahilnimo haday ku geyso qofkii ma aha inaad tira qofkii muxuu u dilay muxuu san u sameeyay qofkan way dhacdaan nin jaahilnina sameeyay jaahilnimo u sameeyay macnaha gabar uu aqoonin ninkaas imagine gabadha asaga hadda la joogto xaaskiisa ka waran muxuu ku sameyn karaa kawaran ninka oo isheeg la joogto maxaa lahaa walaashiisa kale muxuu ku sameyn karaa asagoo laami gabar Soomaaliyeed ku dilaayo muxuu ku sameyn karaa already xaaskiisa waa hadda already in waxa ay laftigeeda ay xaalad xun ku jirto waa soo taas waxaan tusinaysaa wajiga qofka marka magaalo imaatid ama dad aad soo dhex gashid ama ficilka aad ku dhex sameynaysid waxay tusinaysaa dadka ficilka guriga aad ku sameynaysid iyo guriga meesha ka imaatid waxa aad ku sameynaysid soo guriga aad ku sameynaysid wax xun banaanka la imaanaysa soo ninkan haduu naagtan dilayay gabadha miskiinta uu dilayay waxay la macno tahay inuu gabadhaas kuwa ku jira xaaskiisana sidaas uu dilo waxaan ka codsanaa gabadhan bis la fiirin in ninka la daba raaco xaaskiisana la wareesto walaashiisa la wareesto la soo fadhiisay TV-da noo sheegan waxay xaaladda ku sugan yihiin
waxa sheegaya waxay tahay qof walba oo fariintan arkay inuu gaarsiiyo qofka meeshaas mas'uulka ah ama ninka askariga mas'uulka ah ninkaas sharafta Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed oo ku ciyaaray waana qaldan yahay qaladkiisana xitaa la dhihi karo waa la qaldan iska daa ma aha kuwii Caaisha kufsada kama xumo because hadduu maanta Janice ku ilaa uu sameey lahaa kuwa Caaisha maanta askar mayso waan dawladna ma wadin laakiin kuwii Caaisha kufsada kama xumo nin gacan qaaday nin xun waay gabar Soomaali gacan qaaday nin ficiisa fiir xumaan ma lahan laakiin nin qalad waay totally فهميسان سو marka waxa idin sheegay waxay tahay arintaas ninkii sameeyay in si maxkamadda la soo saagay maxkamadda Soomaaliland maxkamadda weyn ee wadanka maxaa la isha Soomaaliland in ninkaas soo istaajiyaan sharciga waafajiyaan xaafadiisa gudaha u galaan ogaadaan gabdhaha kale oo walaalihiisa iyo xaaskiisa sida uu la dhaqmo فهميسان waxa kale oo rag kale oo ayagana hadda gabar in gacan u sii qaadaan si ka sii fikray in ayagana biri ka maalahaas ciqaabta u soo ayagana namatalin gabar Soomaaliyeed waliga gacan u qaadin hadee wax ka sameeyay xitaa in cishid gabdhaha kale oo maxaa la sheeg danta ku qabsatay xitaa ka xishood ka tag hadee gabar ku qaatay sharafteena ma ahayn gabar inaan gacan u qaadno taas gabdhaha Soomaaliyeed waxa idin sheegaya waxa waay waxyaalaha kaas kale yani laga faa'iideysan oo ragga Soomaaliyeed waxa sameynayaan la dhihin no ragga Soomaaliyeed qof shakhsi ku jira gabar xun wajida gabar fiican wajida nin fiican uu jira nin xun uu jira waa dadkan waa mix dadka carro kala duwan laga wada abuur hal carro bis laga ma abuurin carrooyinku way kala duwan yihiin soo marka qof fiican uu leeyahay dad caaw inta live soo galaan video soo duubaan oo dhaqan gaalo gudbinaya in dhahan rag saas loo dilay gaalada laftigooda disho gaalada laftigooda naga way dilaan fahmaysan gaalada laftigooda naga way dilaan waan arki doontaan insha Allah video badan oo ku soo duuban oo soo sheegi doona gaalada raggood naga way dilaan laakiin Soomaalida ragga ma dilaan dumarka ma dilaan qofku waa dhaqan maalmaha soo baxayo waa dhaqan maxaa la isheeg oo maxaa la isheegay wax adiga dhif waay in nin Soomaali gabar gacan u qaado waa laga xishoodaa rag Soomaali isku caayaan gabdhuhu dilay waxa soo isku caayaan sharafteena ma ahayn soo marka dadkan kalena ayagana oo intaabinki live soo galaan Facebook ayuu qaawan dhahay gabdhahaas qaawayaan saas dhahayo caawan uga sii faa'iideyso door ilaa maalmahan uga sii faa'iideyso live soo galaa gabar idinkama yeeleeno gabar dhaqankeeda ka tagtay oo diinteeda ka tagtay war ha ka maqlina gabdhaha Soomaaliyeed ragana Soomaali adinkan ha ka maqlina xuquuqul insaan u doonay waxaas ka jar waxaas dhan hayeelina yaani marsiin waxaas oo dhan waxa idin sheegay waxay tahay ninkii gabar dhaqankeena waa naqana gabar Soomaali qofka sharci u qaado waa la yaqaana gabar Soomaali waxay tahay waa la yaqaana sharafteeda agteena kalena waa la yaqaana waxa noo taana waa la yaqaana soo kuwan ayagana live soo galaayo fiidasho duduba dhaxayana no kama yeelino waxaan sheegaynaa waxay tahay ina barnaamijkan hadduu ku soo gaaro dar alla inta u sheergareysid gaarsiis ragga Soomaali meel walba leeyahay sharaf ay leeyihiin dumarka Soomaali sharaf ay leeyihiin qof xun uu ku jiri kara qof xun uu ku jiri gabar xun uu jiri karta meeqa gabar Soomaalida maanta cadaan iyo balaa inta gacanta u gashay inta la soo dilay la soo silcay nolosha ku soo odkatay oo raggii Soomaali maanta dib u soo laabanayso meeqa qisooyina maqasha meeqa rag oo waxa sameeyana maqasha soo waxaan waa qowmi wada dhan waa Soomaali waay wax xun iyo wax fiican way ku jiraan laakiin ma in rag dhan wada xun yihiin dhaqanka Soomaaliya dhaqan ugu fiican waa qof bil aadan u lahaado diiniyan ku saleysan dhaqan sharaf ku saleysan adduunkana laga amaano soo marka waxa tahay kufaan waxa noqon doonta kufaan waxa adi Ilaahay ka dhigana kufaan mar walba dhaqankaadana kor u qaad in inta soo qaawis live soo gal gabadha Soomaaliyeed la dilay gabadha inta ka dhacday sharciyaas oo adiga ay laftigeeda diintii gadatay sharafteedii gadatay waxeedii dhan gadatay markaas ayadoo rajtiin soo fadhiisanay gabadha Soomaali sharaftaas maan lahayn anaka waxa uu sheegaynaa gabdhaha soo kale inaysan live soo galinba oo xitaa live aad ka daawanin waxyaalahaas kala daawanina ma baani sheegna maalin baa la sheegaa culimada xitaa way sheegaan dadkan xitaa hadda reactionada sameynaya badana way sheegaan xitaa dadka qaarna ma sheegaan way si dhiirigeliyaan soo adiga hadda dhiirigelinaysa minada adigana qayb kamid ah tahay hadda ka soo horjeesatina wax fiican sameeyay adduunka waa ka tagaysaa maalinka hadalkaad waa dhageysana waa dhimanay recording waa hadalkan laakiin hadda tiraado wax kasta aan sameeyo maxaa laha wax walba iska sameeyo nafta mar dhacaysa ma ogid soo marka wax idin sheegaa waxay tahay gabar Soomaaliyeed sharaf agteena kala ninkaasna in maxkamadda soo taago ka codsanayna fariinteena anagu ku hadlayo magaca ragga Soomaaliyeed inay fariinteena soo gaaraan waxa idinkaga tagayaa inaad fikirkaas aan ii sheegay maanta igu taageertaan kuna qaataan qof walba Soomaali fariintan arkana ku qanco meesha nagala socotaan waa minus official insha Allah waa inoo mar kale iyo adinkoo iloobin subscribe ka yarka